ومحي إيرنادو إميسا نوع إيرنو أيا جرتا محاسا وإيرنادا سديس الدبية أصحابي سولو وذا مقالكا محاوك شرحي دونا نوعيدا كلا دونا إيرنادا مغني وعساعد قادر سولو وذا هدان ورسو بتاعي لايك نصوري فلو نصار مقالكي نيكو بلينك إيري بوستي شير نوتاها إن شاء الله هذا ومسنتهي ومحي إيرنادو إيرنادو ومركو طبع كويمادو حبناها دبولان إي جيركا خاصة calooshan sidoo kale waxa uu naqaanaa feerta ilaa xubnaha taranka ama miskaha inta u dhaxaysa ayaa loo yaqaanaa calool eeriyadaas markuu ku yimaado dabac xubnaha daboolo ayaa loo yaqaanaa eerno dabacaas markuu ku yimaado meesha waxaa soo galayo xubnihii gudaha ku jiray mid ka mid ah ama waxaa laga yaabaa xubinta oo dhan inay halkaa ay soo gasho ayaa macquul ah إيرنادو waxa uu caansan lix baa uu caansan lixdaas insha Allah sheegi doona kuwa kale yaryar way jiraan laakiin kuwana uu caansan mid ugu horeysa waxa loo yaqaanaa inguinal hernia tan inta badan waxay ka soo baxdaa qinjirka hoose meesha lagu bilaabanayso ay ka soo baxdaa mid kale waxa loo yaqaanaa femoral hernia tan sidoo kale waxay u dhowdahay tii hore u dhowdahay mid koo ay u dhowdahay wayna adag tahay labadooda in la kala saaro xogaa way isku dhow yihiin sidoo kale mid saxaad waxa loo yaqaanaa Spigelian hernia tan inta badan waxay ka soo baxdaa xudunta qaybta hoose ama qaybta kore labada dhinac way ka soo bixi kartaa xudunta korkeed way ka soo bixi kartaa hoosena way ka soo bixi kartaa magaceed waxa loo yaqaanaa Spigelian hernia iyo sidoo kale mid afraad waxa loo yaqaanaa epigastric hernia tan inta badan waxay ka soo baxdaa caloosha qaybta dhexda ay ka soo baxdaa sidoo kale midda shanaad waxa loo yaqaanaa umbilical hernia tan waxay ku aadan tahay xudunta ama buufka ay ku aadan tahay hernias ay ka soo baxdaa mid lixaad waxa loo yaqaanaa incisional hernia tan inta badan waxay ka soo baxdaa meesha eernada hore laga qalay haddii hore adiga ayaan u qabtay oo eerna hore laga qalay inta badan midda soo laabata oo soo baxda waxaa loo yaqaanaa incisional hernia eernadu saddex midkood bay noqon kartaa mid inay noqoto reducible hernia mid kale inay noqoto irreducible hernia mid saxaad waxay noqon kartaa strangulated hernia midda loo yaqaano reducible hernia midaas waa mid uusan oo eerna markaad taawato gudaha ku cararaysaa markaad taawato gudaha hor u sii galaysaa laakiin midda loo yaqaano irreducible hernia markaad taawato gudaha ma galayso booska ay tahay inta wayna adag tahay mana dhaqaaqayso waxa loo yaqaanaa irreducible hernia yaraanaysa booska ay tahay inta wayna adag tahay mid kale waxaa jira dhib badan oo xanuun badan strangulated hernia baa jira midaas inta badan waxay xirtaa dhiig bay xirtaa dhiig